Charles aan hore kuugu sheegay annagu ma moodayno wax badan inaan qabanay maxaa wacay ninana de abaalba kaga rabnay ma jiro waajibna saaraabay ahayd noomana ay ogolaan karin wax weyn inaan qabanno dhaqaalaha dalku nooma ogolaan karin iyo sabab badan oo kaleeto oo markii dal uu ku dhaqmaayo horay isugu dhaqmi jiray nidaam aan muxuu ah maslaxadiisa haynin laakiin waxaanu isleenahay marba kulli wixii idin soo gaara suga waxaanan qabnaa waxa Soomaaliya u baahan tahay wax far badan inay yihiin oo in la qabtaa xaq ay tahay dhaqaalaha wax badan bay u baahan tahay in laga qabto tacliinta wax badan bay u baahan tahay in laga qabto caafimaadka wax badan bay u baahan tahay in laga qabto xagga dhismada aadamanimada sharafkiisa iyo gobonimadiisa wax badan bay u baahan tahay in la qabto marka jaalle inta caruur Soomaaliya ay gaajo u dhimanayso ama qof Soomaaliyeed uu cudur u dhiman hayo sideeba aan marka ugu marayn karayna inaan wax qabanay balse anaga yideen waxa weeye maalin walba meeshii aan qabanna waa inay meel sugan noqotaa ee wax dhalanteeda waa inay noqon waxaanu qaban karno inaan qabanno waxaanan qaban karin inaanan u dhuun taagin waqti aan munaasib ahayn inoo gaarin waqtiga munaasibka mid walba inaan sugno ayay tahay taladanadu Mr. President waxaa jira dad fara badan oo Soomaaliya oo ku dhaqan dalalka dibadda oo markii ugu horeysay maanta codkaaga maqlaya fariinta aad dadka maanta gaarsiinaysa waa maxay waxaan gaarsiinayaa ummad walba adduunka joogta taariikh bay leedahay dadka Soomaalida oo dibadda jooga waxaan gaarsiinayaa aan una dirayaa waxa weeye xornimada Soomaaliyeed markii ay isku bilowday inay baadi goobto u halganto dadka dibadda jooga qayb weyn bay ka qaateen waxay uga qaateen xoolahooda waxay uga qaateen codkooda waxay uga qaateen in ay istaageeraan isjeclaadaan ayaan darro waxa ahayd markii xornimadii la helay sidii maamulkuba halka uga xumaaday iyagana maamulku inuu ka xumaaday qofku wuxuu ku sharaf leeyahay dalkiisa haddii uusan dalkiisa aaminsanayn wax xushmadaynaya ma jiraan oo kale